nin oday ahaayo xakiim ahaayo caqli badnaabaa gabadhiisii oo la qabay oo carruur dhashay ayaa gurigii timid habeen abba maxaa dhacay buu iyadoo carruurteedii iyo reerkeedii ka timid waxay tihi abba ninkii waan isku dhacnay gurigii waan ka imid waxaan rabaa inaan ka soo tago khalaas aan adig kula joogo odaygii marka waa fikiray gabadhiisii inay ninkeedii iyo ilmaheedii ka timaadda aad buu uga naxay marka wuxuu ka fikiray xikmad uu gabadhiisa gurigeedii ugu celiyo marka intuu guriga galay baa waxaa jiray wax la yidhaahaa ibriiqa oo dhooqada ka samaysan oo lagu weysaysan jiray kiibuu marka biyo ku soo shubtay gabadhiisiioo bannaanka fadhiduu ag marayey kiibuu marka oo biyo ka buuxaan buu dhulka ku sii daayey jug ku siiyey kadib kiibaa ka kala jabay duqii marka waa ooyey aad buu ooyey gabadhii waxay tihi abba maxaa kuu dhacay wuxuu yidhi ibriiqna iga kala jabay oo khasaaro weyn igu ah kaasaan u oynayaa gabadhii marka waxay tihi aabba makanaad saa ugu oynaysaa adoo qof intaa la egoo sharaf lahaa aniga waxay tihi beri suuqa tegaya oo laba xabo oo kanoo kalaa kuu soo iibinaya ha cabsanin iska dhaf abba hintay ku tidhi wuxuu idhi aabba maya mid aad soo gaday waxba iima tarayo aniga kanaan jeclaa kan ayaa cawradayda bartay mid kale oo hadda cawradayda kow baranaya ma rabo gabadhii markaas ay naxdin iyo oohin la dhacday waxay tihi aabba haddaan fahmay qofka loo oynayo waa aniga ayaad ileedahay ninkaagii ku laaba bas waayo beri subaxdaan laabanaya ogow boorsadeedii bay qaadatay maca salaama odaygii wuxuu gabadhiisa caqliga ugu sheegay aniga meeshii aan isku qaawiyey cawradayda laga bartay jirkayga laga bartay intaasoo sana la noolaa inaan hadda ka tago haddana haddiiba ilaahay isiyo guur kale nin kale oo wuxuu noqon doono aana garanaynin isu qaawiyo ma i anfacayso waa arrin igu adag marka khalaas aabbahay wuxuu isiiyey cashir ah gurigaagii iyo meeshii lagaa yaqiinay jirkaaga cawradaada laga bartay halkii baa khayrka ugu jirtaa iyo meeshii ku laabo